Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Mustafa Cabdilaahi Cabdi. Maanta waxaan doonayaa inaan idiin soo jeediyo in yaroo kooban oo ka mid ah qisadii amba taariikhdii asxaabigii weynaa ee la odhan jiray Zayd bin Xaarith. Asxaabigan waxaa la odhan jiray magaciisa oo dhammaystiran Zayd bin Xaarith bin Sharxabiil. Qoyskiisuna waxa uu ahaa Qadaaca. Marka taariikhda islaamka dib loo eegana, asxaabigani waxa weeyaan asxaabigii ugu horreeyay ee islaamay xagga addoomaha. Markaynu ka sheekeynayno taariikhda asxaabigan, waxaynu ka hadli doonaa dhowr qodob oo kooban, oo haddaynu isnidhaahno taariikhdiisa oo dhan ka sheekeeya, waxay noqonaysaa inay xalqado dhaadheer qaadato dhowr saacadood aynu kaga sheekeyno taariikhda asxaabigan. Marka waxaynu kusoo koobaynaa taariikhdiisa dhowr qodob oo kala ah. Qodobka koowaad, waxaynu kaga hadli doonaa taariikhdiisii islaamka ka hor iyo maxaa uu ahaa iyo wuxuu ka shaqayn jirayba. Taariikhdiisii hore islaamka ka hor haddaynu ka sheekeyno, asxaabigan markii hore horta wuxuu ahaa addoon, oo markaa waxaa lasoo qabsaday isagoo 8 jir ah ay reer Qureysheed soo qabsadeen. Markaa iyada oo lagu iibinayo suuq ka mid ah suuqaqa ay leeyihiin reer Qureysheed, ayaa waxaa soo iibsaday nin la odhan jiray Xakiim bin Xazaam, oo markaa ugu talagalay inuu hadiyad ahaan u siiyo xaaskii nebiga Khadiija bintu Khuwaylid radiyallahu canha. Markaa Khadiijina Nebi Maxamed ayay iyaduna hadiyad ahaan u siisay. Zayd bin Xaarithna waxa uu noqday khaadimkii nebiga amba shaqaalihii nebiga, oo Nebi Maxamed ayuu addoon u ahaa. Markii Nebi Maxamed uu Ilaahay waxyi ku soo dejiyey, waxa uu ka mid ahaa kooxdii yarayd ee ugu hor islaamtay, waxaana uu ahaa qofkii u horreeyay ee islaamay xagga addoomaha marka la eegayo. Qodobka labaad, haddaynu gudubno, waxaynu ka waramaynaa sifaadkii amba dhaqamadii uu lahaa Zayd bin Xaarith. Sifooyinkiisa waxaa ka mid ahaa inuu ahaa mid oofin badan, oo Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam mar ay u yimaadeen Zayd bin Xaarith ehelkiisu, oo ay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaad Maxamedow noo sii dayso wiilkaygan. Markaa Nebi Maxamedna wuu ogolaaday oo wuxuu ku yidhaahday waayahee ortoo kaxaysta. Markaas laakiin Zayd bin Xaarith isaga laf ahaantiisa ayaa diiday, oo waayo uu Nebi Maxamed aad buu u jeclaayo, maadaama oo uu ahaa Nebi Maxamed qofkii soo koriyay Zayd bin Xaarith intuu yaraa oo dhan. Markii dambe waalidkii u yimaadeenna wuxuu yidhaahday waxaan la joogayaa Maxamed amba Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Markaa jacaylka uu nebigu u qabo waxa uu gaadhay heer ay asxaabtu u bixiyaan xabbu rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam, oo macnaheedu yahay jacaylkii nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Qodobka labaad ee sifooyinkiisa ka mid ahaana wuxuu ahaa inuu ahaa nin iimaankiisu aad u sarreeyay caqiidadiisu, oo waayo Zayd bin Xaarith waxa weeyaan asxaabiga keliya magaciisa qur-aanka lagu sheegay, inagoo ognay asxaab badan oo kala jirto fadligoodu uu sareeyo sida Abubakar, Cumar, Cali, Cuthmaan iyo asxaab badan oo kala soo raacda. Haddana isagu wuxuu ahaa asxaabiga keliya magaciisa qur-aanka lagu sheegay. Waata lagu sheegay magaciisa suuratul Axzaab aayad ka mid ah. Isna waxay inoo sheegaysaa fadliga asxaabigaasi ku dhex lahaa mujtamaca muslimiinta dhexdooda. Qodobka saddexaad ee maanta mawduuceena kaga hadli doonaa waxa weeyaan ghazawaadkii amba dagaaladii uu galay Zayd bin Xaarith. Zayd bin Xaarith waxa uu ka qayb qaatay dagaalo door ah oo qaarkood uu nebiga la galay. Dagaaladaas waxaa ka mid ahaa ghazwatu Badr, ghazwatu Uxud, ghazwatu Khandaq iyo ghazwatu Khaybar. Waxaa kaloo uu goobjoog ahaa Zayd bin Xaarith heshiiskii Xudaybiya. Dagaalkii u dambeeyay ee uu Zayd bin Xaarith galay waxa uu ahaa dagaalkii uu ku shahiiday ee magaciisa la odhan jiray dagaalkaas Mu'tah. Dagaalkaas oo uu ku shahiiday asxaabigaasi. Dagaalka u dambeeyay uu Zayd bin Xaarith galay haddaan wax ka yara sheego waxa weeyaan dagaalkii uu Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu asxaabta u diyaariyay inay reer Ruum ku qaadaan. Dagaalka markii la diyaariyay diyaarintiisii la dhameeyay, Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu kula dardaarmay amba uu u doortay hoggaanka ciidanka 3 asxaabi, si haddii 3da asxaabi mid ka mid ah uu shahiido, uu kii kale ku xigay uu calanka u qaado muslimiinta oo aanay u jabin. 3da asxaabina waxay kala ahaayeen Zayd bin Xaarith oo ahaa hogaamiyaha ciidanka, Jacfar bin Abi Taalib iyo Cabdillaahi bin Rawaaxa. Dagaalkaas oo ahaa dagaal aad u weyn oo ay muslimiinta iyo gaaladu ay wada galeen.
Dagaalka haddaynu sheegno tirada labada kooxood ay kala wateen tirada gaalada iyo tirada muslimiinta waxay kala ahaayeen tirada muslimiintu waxay ahayd 3,000 oo asxaabi halka ay tirada gaaladuna ay ahayd 200,000 oo nin. Dagaalka aadka weyn oo ahaa dagaalkii uu ku shahiiday asxaabiga qiimaha weyn lahi. Marka maanta intaasina kusoo koobaynaa taariikhda asxaabiga inkastoo taariikhda asxaabigan ay aad uga ballaaran tahay intan laakiin maanta intaasina kusoo koobaynaa. Marka hadduu video ku cajabiyay like saar hana ilaawin inaad nagu soo biirto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.